الرحيم ما أنت وحن كهذا فلاورada ilaahay nimcooyinka shaahiyada uu ina siiyay kow number 1 ka ah oo ah hibiscus flower wax weeyaan waa zero calories waa vitamin C wuxuu weight-ka ayuu dhimaa wuxuu hoos u dhigaa weydinka arkay markaan meesha ku shubay wuxuu hoos u dhigaa low blood pressure-ka sonkorta wax aanu dawo ka ahayn ma jirto maanta oo dhan hadaad biyo ku dhex ridato oo intaad yar maydhaad biyo ku dhex ridato hadaad sida shaaha intaad korsato falaastaada ku shubto wax dhibaato ah oo aad ka arkaysaa ma jirto waa nimcooyinka aynu u baahannahay inaynu baranno wax sonkor lagu soo daray wax la soo iibiyey waxaan baynu daba cararnaa inagu had iyo jeer laakiin waxay muhiimadu tahay inaynu baranno waxyaabaha aynu kitchenkeena ku haysano ama caafimaadku ku jiro shaahiyada caafimaadku ku jiro kow ka yahay green tea waxa weeyaan horta shaaha oo dhaniba wuxuu leeyahay antitoxin number 1 buu kana antitoxin ka yahay shaaha green tea mid walba uu leeyahay antitoxin shaaha madow waxay dhibaatadu dhacdaa un marka aad sonkor ka buuxiso ama aad adigu calories ku darto laakiin shaahiyadu waa antitoxin kan laakiin vitamin C buu leeyahay oo u dheer anti inflammatory weeyaan waxyaabo badan oo fiican buu ka dawo yahay marka shaahan qof walba sida waan karinayaa imika waxaan u baahannahay alaabtan aan u baahannahay inaan haysano markaan imika karinayo waxaan u baahannahay liinta waxaan u baahannahay liin macaanta waan meeri doonaa waxaan u baahannahay liin dhanaanta liin macaanta iyo hibiscaska sida shaahan imika u karinaya marka aan kariyo iyaan dabadeedna idin tusayaa sida shaaha looga dhigto insha Allah waa yar maydhay hadda waxaan ku shubayaa dabkii digsigii baan ku shubayaa oo kaas marka uu karsamo ana idin tusaya hadda waa karkarayaa liin dhanaantaan ku ridaynaa liin dhanaanta ayay isagaan xooga isku karinaynaa insha Allah hadda waa kan dabkii baan ka soo qaadnay marka waan miiraynaa galaaskan aan ku miirayaa waa nimcooyinka ilaahay na siiyey kuwa number 1 ka ah masha Allah waxaan ku daraynaa liin macaantii oo tan ah oo aan iyadana miiray oo aan shaandhamirtada ku miiray ayaan ku daraynaa vitamin C number 1 liin macaantuna ما شاء الله waxaynu sheegnay hibiscaska shaahiisi waka isagoo shaaha inaad arkaysaan baan jecelahay flowerka isagoo ah waka markii aan kariyay kan ma tuuraysid jirkaad ku maydhanaysaa markaad doonto waxaynu sheegnay inuu antitoxin yahay anti inflammation yahay number 1 vitamin C leeyahay waxaynu sheegnay inuu dhiigga hoos u dhigo oo
barasharka kor u kaca ee loo yaqaano high blood pressureka hoos u dhigo sonkorta inuu hoos u dhigo oo diabetiga uu wax ka taro marka haddii aad leedahay low blood pressure qaadashadiisa kolleyba dhakhtarkaagaad la xidhiidhaysaa waayo qofka low blood pressure kale haddii uu barasharkii hoos u dhigayo waxaa laga yaabaa in ay arrinkiisu yar adkaado marka nimcooyinka ku jira lagama soo koobi kara halkan aad iyo aad in aqalkaaga dhexdiisa aad ku samaysato shaahiisaas inaad soo iibsato aan idin tusay oo ah hibiscus tea inaad soo iibsato aqalkaaga dhexdiisa inaad saan u kariyey shaaha maanta maasha allah